maalin maalmaha ka mid ah adigu sabab kasta ha ku timaadee waan geeriyooday oo waan dhintay markii aan dhintay nimankii gacanta igu hayay gaaladu waxay igu aaseen qabuuraha gaalada qabuurihii gaalada markii la igu aasay waxaan ugu tegey dad xabaalaha ku jira oo igu hareeraysan oo qaylinaya oo heeso qaadaya heesihii waa yaabkiisa isugu low waxaan ka xasuustaa Sandamario. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan noo soo gashay inaanu la kulano mar labaad Maxamuud Faarax oo kamid ah odayaasha reer Norway ahna shakhsi uu xanuunkan coronavirus ama safmarkan adduunka oo dhan saameeyay uu haleelay Maxamuud oo kulanka horeeyay aynu la kulanay isagoo inoo ka warbixinaya xanuunkan iyo aafadiisa iyo sida maaragtay uu dhibaatada uu leeyahay wacyigelin badan oo horena ka sameeyay baa maanta waxaan rabnaa bal in yar oo kooban inuu inoo ka warbixiyo insha Allah xanuunkan xilligii uu ku dhacay waxa uu dareemay laga soo bilaabo markii ugu horeysay uu dareemay ilaa iyo intuu dhakhtarka galay maxamed ku soo dhawow Modern Media. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سؤال آديات بعض ما هتصنتهاي وعيقلين تنرنتي أين وضنا أين هرينا أصلا شجنا إمن كان بلابنا وح معناه يدي هاي الدنك وح كل عي حنون آد وتيران يبضن أو أحن تبضن أين وشعلين أو إهلهانا رنتي إلى هاي السبب وقد جاي من الكمود كده سبب وليه هاي ولبا هالدوركي ومدينا يأدون كبقادنا يأسيدك دقة وفافيو أنا أقول مركب واحد كم ده قف كم ده قف كي نكمل قف كم ده وضدك أدون كنا القف وأصيبه حنون كني ما أنا دمن سيدي عن هرايدين شيء وإلى هاي ويجك عيي لكن وحان أها جيري كدوات أو جيري كدوات بانها markaan sugu low bilaabo xanuunkan markii aan dareemay ilaa iyo maalintii ugu dambeysay ee aan dhakhtarka ka soo baxayay 8 bishii afraad 2020 ayaan goor fiid ah soo hoyday markii aan soo hoydoon isleeyahay gurigaaga aad gashid baa sugu low waxa igu bilowday murqa xanuun aad u xanuun badan oo aanan isku ogeyn markaasaan waxaan mooday wax igu dhacay oo kale sidii buuri igu dhacday qofka marka nabar ku dhaco oo aad meel ama ka soo dhacdo ama kuftadeen nabarku waa ku kaar murquhu ikaarayaan waan soo baxay gurigaanimi saacada kadibna waxaan dareemay aniga oo dhan inaan saaqnahay oo aan dareemayo xumad fara badan xumadda faraha badan markii aan dareemay kiniinka xumad jabinta ayaa guriga sugu low ii yaalay waan cunay 4 saac kadib sida caadada ah 4 saacba mar buu kiniinkaasi dadka caawiya marka xumaddu hayso wax isbedela oo aan dareemay ma jiro kiniinkii baan habeenkii oo dhan ku noqnoqonayay iliya baal isuma keenin maalintii labaad xaaladaydu way ka sii daraysay oo xanuunku wuu sii siyaadayay laakiin dad badan oo ehelo isoo wacay waxay ii sheegayeen inaan isticmaalo waxyaabahan geed kuleylka Soomaalidu tiraahdo sida toonta iyo basasha iyo xabad sawdada iyo malabka iyo waxyaabo caynkaas oo mudaawaad aad u fiican oo dabiici ah ayaan isticmaalayay laakiin wax ka soo reyna maanan yeelan maalintii tobnaad nasaasay igu dhalatay 8 bisha 9kii maalintii tobnaadna waa ii dhalatay iyadoo xanuunku uu ka sii darayay oo xumadaydu ay cirka isku shareereysay nasiib wanaag waxaan haystay bahalka xumadda lagu cabiro cabira xumadda oo qofka caadiyan 36 laakiin wuxuu ka bilaabanayay 39 iyo wixii ka sareeya kiniinkan liqayay habeenkaasna sidii baa waagu iigu bariyay maalintii 11aad xilli ay tahay kala barkii maalinta ayaan waxaan ogaaday xaaladaydu inay faraha ka sii baxayso markaas waxaan dalbaday gargaarka degdega sida ayaa ambulance igu qaaday la iguna gudbiyay dhakhtarkii 2 maalmood waan xasuustaa oo waxa la igu rakibayay antibiyootik fara badan iyo wax jirka lagu waraabinayo iyo waraysiyo laakiin markii la gaaray 2 maalmood kadib oo 12 12 13 ayaa adduunka iigu wardambeysay
laga bilaabo 13 ilaa taqriiban adigu 4 week 28 casho waxaan ku jiray koomo oo koomadaas ayaan ku jiray wax dhacayana ma ogeyn sidii aan hore idigu sheegay intii aan koomada ku jiray dad qaraabada aba dhakhaatiirta iyo la soo xiriirayay si ka balaayirka oo u sheegay maalin walba xaalka istaybkaygu marayo runtii labadii wiig ee ugu horeeyay oo koomada xaaladaydu aad iyo aad bay u liidatay oo mushkiladda ugu weyn xanuunkan uu leeyahay waxa jira waxaan la yiraahdo igfashinka jirka ama CPR-ka ee laga qaado dadka farta dhiiga yar ee la cabiro la eego qofka jirkiisa inuu igfashin ku jiro wuxuu sheegaa haddii aad si qof caadi ah oo caafimaad qaba sidaydoo kale maanta alxamdulillaah tahay igfashinka jirkaaga wuxuu sheegayaa 5 ilaa 20 inta u dhaxaysa 5 ilaa 20 waa caadi haddii uu konton gaaro qofka jirkiisa igfashin baa ku jira marka waa in antibiotic la siiyo la daweeyaa oo si dhaqso ah loo daweeyaa wixii inta ka sii badan dawo u baahan yahay waxay dhakhaatiirtu marka aan idiga soo dhaafay ay sheegeen maalmihii ugu dambeeyay ama maalintii ugu dambeysaan koomada gelayay CPR-kayga ama igfashinkaygu 405 buu marayay 200 hadduu gaaro waa khatar qofka noloshiisa 405 buu cabirku gaarayay waad garan kartaan jirka igfashinka bahalkaasi uu leeyahay awoodiis marka labadii wiig ee ugu horeeyay bahalkaasi aad buu u kacsanaa hadduu doono 400 buu dhaafayay maalin intuu dego oo 50-60 dego halkiisa ku noqonayay stabil ma ahayn laakiin labadii wiig dambe stabil buu ahaa waana deganaa ilaahay qof uu naf la maagay baan ahay oo dawooyinkii baa shaqeeyay sidaasaan 4 wiig kooma ugu jiray koomadii markii aan ka soo baxayna waxaa la ii gudbiyey dhakhtarka qayb caadiyahoo loogu talagalay dadka bukaan socodka caadiga halka 10 casho kale aan ku sii jiray laakiin aanan ahayn inaan wax kala garanayo mooyaane aanan qof caadi ahayn oo la oran karo hadallada aan ku hadlayo iyo dadka ii imanayo iyo dhaqdhaqaaqa jiro iyo waxoo dhaniba waxay ugu ahaayeen wax aad iyo aad u adag laakiin intaa wixii ka dambeeyay alxamdulillaah cuntadii baan cunay mishiinadii faraha badnaa baa la iga kala yareeyay qof itaal darro ku dhacday aan ahaado laakiin waan soo kacay halkaasaa processkaygii ka sii bilowday dhakhtarkaa 2 bilood oo dhowdhow baan ku jiray bil kale waxaa la ii gudbiyey sidaan idiin sheegay dhakhtar weyn oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo ee Gardermoen kaasoo aan ku soo qaatay bil training si dib loogu soo training gareeyo murqihii iyo jirkii iyo qofkii uu noqdo qof isagu isbixin kara oo isku filan oo xaajaadkiisii qabsan kara alxamdulillaah 3 bilood waxaa halkaa iigu dhammaaday xanuunkii aadka u darnaa runtii saaxiibo badan oo aan qaaliyo oo aan lahaa qaarkood ay aakhiro u aadeen oo intii aan ama koomada ku jiray ama intii ka horreysay ama intii ka dambeysay iyo ilaa yoomul haadaaba ay dhimanayaan halkaa ilaahay wuu iga soo kiciyey laakiin waxaan idiin sheegayaa oo gunaanada laga bilaabo maalintii xanuunkaasi helay ilaa iyo maanta boqolkiiba 100 caafimaadkii aan haysan jiray uma dhowi ma u dhowi sanbabadaydoo kale tusaale ahaan qofka sanbabkiisa waxyaabaha mucjizaadkan ku soo bartay waxaa ka mid ah inta uu haysto calaacal calaacasha qofka wax ballaar la eg inta sanbabkaagu shaqaynayo qofku oxygen wuu heli karaa wuuna noolaan karaa laakiin maalinta ugu dambaysa uu ama madoobaado ama uu xanuunku qabsado waa maalinta uusan dib kugu shaqayn doonin beerkoo kalaa ka mid ah beerka qofka wuu koraa qayb buu ku noolaan karaa marka waa waxyaabaha mucjizaadka ah markii aan dhakhtarka ka soo baxayay boqolkiiba 45 buu sanbabkaygu shaqaynayay adigu muddo 6 bilood 7 bilood kadib dawooyin badan aan qaatay boqolkiiba 70 buu soo gaaray laakiin ilaa iyo maanta sidii aan ahaa kuma soo noqon iyo si u dhow toona waxaa iyada jirta marka laga hadlayo qofku muddo dhowr wiigaba waxaad ku jirtay koomo oo aadan ku jirinba xaaladda caadiga ahayd oo qofku normaalkii wax ku kala garanayay ku jirin bal xaaladaas koomada dadku waxyaalo kala duwan bay la kulmaan riyooyin siyaalo kale bal xaaladda aad ku sugnayd iyo dareenkaaga siduu ahaa iyo jawiga aad ku sugnayd muddadaas waxaad ka xasuustay waxaad nooga sheegi kartaa bismillaahi raxmaani raxiim waa runtii waxaan odhan karaa caalam yaab leh baan ku sugnaa
awalan horta waxaan idiin sheegayaa maalintan koomada galay ilaa iyo dhammaadkii maalin walba riyooyin baa ii imanayey riyooyin yaab la weliba oo runtii mucjisooyina oo yaab badan oo aan dhammaad lahayn ayaa ii imanayey laakiin hal riyo uun baan ka soo qaadanaya oo runtii icajab gelisay maalin maalmaha ka mid ah adigu sabab kasta ha ku timaadee waan geeriyooday oo waan dhintay markii aan dhintay nimankii gacanta igu hayee gaaladu waxay igu aaseen qabuuraha gaalada qabuurihii gaalada markii laygu aasay waxaan ugu tegey dad xabaalaha ku jira oo igu hareeraysan oo qaylinaya oo heeso qaadaya heesihii waa yaabkiisa isugulow waxaan ka xasuustaa Santa Mario Santa Lucia waxaasay sheegayeen nin dadkii gaarka ahaa baan waxaan ku yidhi dadka halkaa jooga bir igaga xidho aniga ii imanin agtayda ii imanin sidoo kale bir baa la igaga xidhay markaan muddo birtii ku xidhnayd sugulow biyo ayaa ilaahay iga furay jirkayga ka furay biyihii bad bay noqdeen gaaladii bay qaadeen dhulkii oo dhan bay maasheeyeen maalintii dambe dadkii qabuuraha ku jiray way dacwoodeen waxa la biyahan aan qaaday ninkan hana laga saaro anigoo xaaladda ku sugan ayaa arintaydii waxa ka war helay masaajidka Tawfiiq ilaahay ha barakeeyo sheekhiisa iyo culimada iyo dadkii masaajidka ku tukanayay waxa inaan halka ku aasay way dacwoodeen waa la iga soo saaray qabrigii waa la igu tukaday waa la meeray waxaana la igeliyay xabaalaha muslimiinta ay Oslo ku leeyihiin baa la igu aas laakiin muddo yar kadib markii la iga tagay la iga dareeray isla biyihii oo intii hore ka fara badan ayaa haddana igu furmay waa yaabkiis maxaa xal ah kadib wiil aan dhalay ayaa markuu ogaaday biyahaasi inay igu furmeen buu wuxuu go'aan qaatay in la iga saaro qabriga meydkaygana loo qaado magaalada Muqdisho diyaarad buu halkaa igaga qaaday garoonka aadan caduu iga dejiyey ilaahay mahadiisa masaajidka Sheekh Cali Suufi baa la igeeyey dad aan isiri markii riyadu ay igu lahayd waa 50,000 oo qof ayaa meydkayga ku tukaday waxaa la igu aasay xabaalaha barakaad markii xabaalaha barakaad la igu aasay qol weyn oo waasac ah ayaa la dhigay garabkayga halka naaskayga bidix hoostiisa oo dhinaca bidixa ayaa waxa la igu xidhay biyo Soomaalidu faantada aad u garanaysaa midabka faantada leh oo macaan oo qabow ayaan cabayay biyahaygi markii aan laastay goor galab ah waxa casuumad ii sameeyay Dr. Cali iyo Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi ayaa magaalada casuumad aad u qurux badan iigu sameeyay waliba yaabkiisa sugulow casuumadda meesha la iigu sameeyay waxay ahayd doon ka soo bilaabanaysa dhulka bridge dushii ku soconaysa magaalada ka gudbaysa meel xeeba tagaysa haddana soo noqonaysa dhexdooda guryo ayaa ka dhisnaa guryaha dhexdooda ayaa waxa la iigu sameeyay casho aad iyo aad u qiimo badan oo macaan badan meesha iyo Soomaaliya iyo destinationkaygii ugu dambeeyay raaxo badan ayaan kala kulmay riyadaas ay cajab gelisay laakiin riyooyinka ay soo maray boqolaal sugulow way dhaafayaan inkastoo aan maanta wada xasuusan laakiin taasaan idin dooray waxa kale la yaab leh riyadii waxaan u sheegay Dr. Cali Maxamed Saalax ilaahay ha xafido sheekhayaga waxaan ku yidhi riyadaas iyo baan kula kulmay xilligii koomada ee balka waran wuxuu yidhi ceel ama meel laga cabo oo aad qoday ma jirta oo bahaayinka iyo xooluhu ka cabaan haabaan ku idhi meel oo mana ah oo dalka Soomaaliya kamida baan berkad weyn waxaan ka qoday 20 sano ka hor Dr. Cali berkada waxa ka caba xayawaanka daayeerka qofka soconaya qofka ooman hada huwa riyaa'i waa taariyadaadii aad weydiisay inaan ku cabiro halkaas ay ku dhamaatay badana riyooyinka waxa la kulma buu yiri qofka dadka biyaha ka waraabiya sida darteed adiga iyo inta kale waxaan kula talin lahaa in dadka loo ogaado meelaha oomanaha in biyo laga sameeyo adoo soo ururinaya talada aad siinaysid xanuunkan coronaviruska dadka Soomaaliyeed iyo taladaada ugu dambeysay ee talaalka xanuunkan oo talaalkiisu hadda adduunkii soo gaaray labada kalmadood soo urur bismillaahir rahmaanir rahiim awalan horta waxaan leeyahay xanuunkii coronavirus kuma uusan bixin oo adduunka kama tagin inkastoo meelaha qaar aan arkayo Yurub iyo meelaha qaar la furay xanuunkii wali wuu jiraa
taxadarku sidiisii ha ahaado kala fogaantu sideedii ha ahaato nadaafadda iyo faraha oo la maydhaa sidoodii ha ahaadeen qofkii ka shakiyaa xanuunka inuu hayo si dhaqsaa meelaha loogu talagalay ee baadhitaanka iyo ha tago qofkii arka inay neeftu hayso oo xanuunkan waad ogtihiin waxa weeye waa dee xanuun neef mareenka mara neeftuna dee hadday istaagto daqiiqado gudahood ama 2 daqiiqo 3 daqiiqo dee waxay sababi kartaa geeri ma aha xanuun intuu jidhka mar haddii ay neef mareenku xidhmo qofku uu muddo la soo noqon kara marka waxaan ku talin lahaa taxadarka inuu sidiisii ahaado in la isbaadho in nadaafadda aad loo ilaaliyo iyo in la kala fogaado iyo in lagu dalaado afxidhka waa muhiim waxaan kaloo qodobkaa kaga baxaya inaan tacsi u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii qaaliga ahaa ee xanuunkan kaga geeriyooday oo maalin walba aynu maqlayno meel kastoo ay dacalada dunida ka joogaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naxariisto ehelkoodiina samir iyo iimaan ka siiyo inagoo dhanna inaga siiyo taasina runtii waa duco aan u marinayo gebagabada waxaan leeyahay maadaama xanuunkii aynu isla garanay khatarta uu leeyahay waxyeeladiisa sida uu adduunka u saameeyay waa la dadaalayo dadka aqoonta dawada ulihi way dadaaleen adduunka dacaladiisa waa la isku cararay wax la ordaba dee talaalada aynu aragnay faraha badan baa soo baxay talaaladii mar haddaynan inagu wax aynu ku bedelanaynaa oo kala haynin ama aqoonteeda ama aynaan cadayn karin waxaan leeyahay talaalka hala qaato oo sidaa aniguba aanu qaatay iyadoo xanuunku igu dhacay talaalka qaata ayaan idin oran lahaa wax aadan markaa aqoon adigu u lahayn oo aqoon saxa aadan u lahayn dadka ha iska hortaagin oo dadka ha iska hortaagin inay talaalka qaataan khaasatan dadka xanuunka u nugul ayaan oran lahaa talaalka si degdega meel kastoo caalamka ka joogaan ha u qaateen ilaahay ha idin barakeeyo